السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليك وايد السلامي ميلو بقى دونك جوجتان ولا شي نجم MBR halka diga daawanaysan waa MBR qurux dumar hay lawin videoga ina like gareysid oo aad share gareysid oo ma aragtay hadaad nagu cusubtaan aad martay channelka subscribe asartid gambalelka aad furtid waxyaabo badan ayaad ka faa'iidi doontaa biidnillaahi raxmaan anigana saa wax idinkaga faa'iido commentigiina maartay igula soo wadaaga ما شاء الله تبارك الله قبلها حاسسك أيو فيديو قم كسعدا هدات هاي حاس مروة أو ميل دقن أو مارتي ما شاء الله تبارك الله هدات هاي انت القلب أن كالا صوت لندونو أنا جو كوسينا يو ولا السينما أنا جو كوسينا إن قبرد أولي هاي هدات أركتي القف لهاي أنا جو طلع مرة أنا جو ضد طلع كمقاطع أنا جو قف وحي مشي كره هدات أركتي وقف نولش كان أحسن وقف أن وحبة فهن سنين qof walba adduunkan aad u jeedad role model buleeyo qof uu ku daydo leeyahay aniga najmo waa idin kaga sheekeen doonaa yaa keen doonaa markuu aniga guurkeyga cusbaa yaa role model ii ahaa yaan ku dayan jiray yaan dhageysan jiray yaan ma aragtay daaman jiray yaan ku xirnaan jiray maartay yaa la socon jiray waa idin kaga sheekeen doonaa ma sha Allah tabarakallah ilaahayga waaxidka weynaa iridda uu iga galiyay oo aan role modelka ii ahaa oo aan ku dayan jiray oo aan dhageysan jiray oo aan maartay mar walba ma sha Allah tabarakallah aan maartay fikirkooda qaadan jiray waxay ahaayeen dad wanaagsan maalinba idin la shargareen doonaa dadkaas ayaga ah sidaas la aljigeed gabdhaha Soomaalida waxaan rabaa talooyinka qaar dadka aad ka qaadanaysa ina aad iyo aad ugu fiirsataan aad inaad ugu fiirsataan ragga Soomaalida iyo gabadha ninka Soomaaliga iyo gabdhaha Soomaalida waa dad challenge ku jiro waa dad tartamay hadaa halkaas soo istaagtid oo aad maanta si negativity oo maartay si positivity uga hadashay arrimaha qoyska oo aad maartay gabdhii aad dhiirigelinaysid ninba ku soo ataagayo lishii aad maartay halkaas aad wax maartay aad wanaag ka sheegaysid gabdhii ku soo ataagayo soo marka waa dad ayaka dhanba maartay challenge ku jiro aan isku dayin inay wax xaliyaan aan isku dayin inay nolosha quruxsadaan laakiin Soomaalidu marbay nolosha quruxsataa markay nolosha quruxsato oo nolosha reality-geeda ay face gareeyaan xaqiiqada nolosha markay face gareeyaan waa markay ajaanibta ay guursadaan laakiin markay Soomaalinimo ahaan ay isku guursadaan waxaad u malaysaaba ma aragtay waxaan macna lahayn bay iska soo qaadaan gabadhana kibirkeeda cirkaas maraya de faaraxna faaraxiisa uu ahaanaya sida la aljigeed marka waxaan rabaa inaad ma aragtay dadka aad talada ka qaadanaysaan inaad aad iyo aad uga fiirsataan example hada gabdhaha Soomaalida inta badan ee hada arrimaha qoyska ka hadlo baraha bulshada ku jiro laba marxalad markay ku jiraan bay hadlaan koow gabar masiirsan oo ninkeedii ka masiirsiyay ama maartay go'aan ninkii ka qaadatay oo caloosh xiratay oo aan ninkeedii maartay rajo kale markaas si kula joogto ilmahaaga ku korso iyo gabar single mother ah aniga adiga kugulama talin karo marxaladda aniga aan dareemayo adiga kugulama talin karo markaan aniga gurigeyga iyo reerkeyga uu iga burburay oo aniga aan murugeysanahay oo anigu la isoo dhibaateeyay ama anigu qaladka aan lahaado ama faarax baqaladka ha lahaado oo aniga markaasi aan dareemayo maartay murugo iyo dhibaato adiga tala iiga ma baahnid because waxa adiga ku soo maray waxa aniga isoo maray iyo waxa adiga aad marayso labay kala yihiin hooyadii ku dhashay oo adduunka ku keentay baa waxa kala irsaaqad aad tihiin maalinta lagu soo guursado gurigaaga waxa ka cuntay iyo hooyada gurigeeda waxay ka cunayso waa laba different oo kala cunto ah kala irsaaqad baa tihiin hooyadii adduunka ku keentay marka qofka bili aadanka ah marxaladii iyo adiga jabiga aad soo martay noloshaada la isma garab dhigdhigo la isma garab dhigo marka waxaan arkay gabdho badan oo baraha bulshada ka arrimaha qoyska ka hadlayaan oo kale mar walba waxay uga hadlaan si negativity ah gabadhi waxaad arkaysaa shalay lahayd faarax laga baasto wajimale maartay cuntada ka kala qarso biilka maartay wax ka kala jar faarax wajimale faarax kan waay nin waxan waay nin kuus waaye maartay ani nin uma baahni aniga laandeeraan ahay aniga kana ahay oo markaad gabadha hadlaysa isdheys gabadhaan kuleel badan baa ka soo baxay markaad isdheysid bari waxaad arkaysaa markuu nin guursado haday single mother ahayd ama ninkeediba ay la heshiiso waji ahaan kula imaanaysaa jawi romantic والله يقبا وقان يا والله بلوت لا حاجه يا سو سعود سناب شات هيس غاريا بلا ساري هايبا عشاء ولا بدا aadayaaba tii shalay qaylinaysa ma aha gabdhaha marka uma baahnidin gabdhaha noocaas oo kala ah role model yeesan idin noqonin waxba ha ka dhageysanina inta badan gabdhaha hadaan ahay runta
xaqiiqada markaan nimcada ku jirno markii nala qabo oo xaasas aan nahay oo aan sharaf leenahay oo marwooyin wanaagsan aan nahay oo maaragtay aan jacayl iyo barwaaqo aan ku dhex jirno ma hadalno ma arkaysid laakiin gabadhaas la soo furo mic bay soo qaadanaysaa TikTok baaba bariyahan jiraaba sidaa la aljigeed marka gabdhaha waxaa idin leeyahay qofka aad talada ka qaadanaysid aad iyo aad uga fiirso okay intaas halkaas uga baxo waxaan rabaa marka inaan la hadlo gabdhaha Soomaali ee marwooyinka ee xaasaska ee la qabo dadku horta qof walbo bili aadan ah markaad maanta yar tahay oo aad soo gurguuratid oo aad soo kortid aad soo weynaatid oo aad qaangaartid waxaad bilaabaysaa shukaansi makeup smare roseto baa bilaabaysaa way u raadinaysaa waxaad raadinaysaa qof aad nolosha la sheer garaysid oo nolosha la wadaagtid oo maartay ilaahay awlaad haduu idin siiyo aan nolol farxad leh aad wada yeeshaan markaad reer yeelatid reerku uu challenge badan yahay noloshu way challenge badan tahay qofkii aad shalay taqaanay ee markaad maaragtaa isku imaanaysaan adigana dhalada catarka inta isku soo jibisid asagana isku soo jibinay dhalada barfuuka ah ee halkaas inta wada fadhiisataan koob shaah aad wada cabtaan oo halka aad wada dhoola cadeynaysan oo haddana saacado inta isla joogteen aad kala tagayseen horta noloshii tii ayada ahayd tu ka duwan baad horta guriga ugu imaanaysaa markaad aad guriga imaatid telefoonki intaasoo saac habeenkii maartay la isdhafrin jiray iyo waxyaabihii faraha badnaa maartay wax badan isbedelayo markay labada qof guriga iskugu imaadaan maxaa lagaaga baahan yahay marka qof as gabdho markaan nahay haddaan nahay horta gabdho Soomaaliyeed emotionalku ilaahiga waaxidku inaan nagu abuuray ee ah dareemaha ama qiirada uu ilaahiga waaxidku inaan nagu abuuray dumar ahaan ama bili aadan ahaan uu nagu abuuray anaka waxaa noo dheer trauma emotional on kala imaanay traditional keena emotional oo dhaqankeena aan kala imaanay qiiro aan dhaqankeena kala imaanay ba horta noo dheer mar walba waxaan jecelnahay inaan baroor diiqa dhageysano like gabadha cala Susanaya dadaganaayada adiga waa ku garboynaya baizori maanta dhagahaaga waxay u raaricinayaan inaad dhageysatid dhibaatooyinka iyo dhibka ee baarti gabadha qalbi jabkeeda sidaa la aljigeed marka maxaa lagaaga baahan yahay qofkii aad shalay istaqaaneen markuu guriga isku imaateen dabeecadihi isbedelaayo okay ninka sidiisa banaana marka aad isku cusub tihiin oo aad nolosha isku cusub tihiin habadboodin qofkii shalay aad dabeecadiisii ee wanaagii iyo waqtigii wixii aad ku arkaysa hadaa aragto inuu isbedelay dabeecad kale la soo baxay dabeecadaha oo aan loo dul qaadan karin oo kale waxaa kamid ah qofkii inuu gacan ku qaado qofkii inuu ku aflagaadeeyo uu abuurkaaga wax ka sheego ehelkaaga wax ka sheego qofkii oo habeenbar saddex iska imaanayo oo xilli hore adiga aad seexatay habeenbar iska guureenayo qofkii oo shalay ku yiraahday maaragtay balwad melihi oo balwad ku soo baxday waxyaabahaas oo kale waa another situation laakiin waxa iska jiro oo dabeecad ah oo qofkii markaad maartay active-ki faraha badnaa call-ki faraha badnaa hunuhunudi faraha badnaa waxa laga yaabaa markuu ninka 3 sano wada joogtaan inaad ka weysid asagoonan aan ku nacbaneen laakiin gurigiiba hadda la iskugu imaaday maartay wixii hore uu hunuhunudi hore ma laha 3 sano ugu horeysa laakiin 3 sano uu leeyahay laga yaabaa laakiin wixii ka dambeeyay inuu ka cadiso okay marka gabdhaha Soomaalida pointiga ugu weyn oo aan rabo marka inaan kala talay waxay tahay marka aad wax jeceshahay adiga gabarayay Soomaaliyeed oo aad qof jeceshahay cagaha dhulka dhig kaba yaroo kula eg soo xiro marka wax jecelnahayna adaa gabdha Soomaalina waxa u dhaqamanaa sida qof waalan camal u dhaqanaa raggi waxa ku dhaqnaa obsess baan ku noqonaa oo raggi baa maanta ku mashquulnaa oo waxaana maskaxda galaynin oo adiga qiimahaaga iyo dadnimadaada hoos u dhigaayo bad qofkii la hoos ordaysaa maanta waxa isku dayaysaa inaad qofkii qasabtid oo waqti in lagu siiyo in maanta adiga lagu firfiriyo in adiga maanta dhan lagu daba socdo in maanta dhan aad qofkii ku rarnaatid in maanta dhan aad ma artay qofkan saad habi uga dhigileed inaad ku mashquushid ilaa marka dambe lagu yiraahdo hey inta adiga dhan saa lagu soo qabtay lagu yiraahdo hey halka iga istaag bal adiga waa ka neefsan lahay ilaa marka gabadha Soomaalida dhaqankaas iyada ah joojiya office gabadha markii la guursaday ee guriga ku cusub tahay wax maanta baraha bulshada dhex orday hadaad aragto cunto af loo gelinayo loo qabeenayo laga dhaqaayo waxa la sameenayo dhan gabadha sameynayso you never seen will sameenayo waxaas you will never seen ma arkaysid
because gabadha markay wax jeceshahay gabadha Soomaalida si xoogoo yar waxay u dhaqmataa yar waali ah dhaqanka iyada horta daa leedihiin joojiya kow number 1 shalay markii lagu soo guursanayay adigoona cuntadaada la arkin adigoona gogashaada la arkin adigoona waxyaabo badan laga ogeyn baa lagu soo jeclaaday nolosha in lagu loo qaybsadana go'aan lagu soo qaatay so today wife baa tahay xaas baa tahay waxa tahay boqorada guriga baa tahay waxa tahay maartay guriga boqoradeed ku day in adiga lagu raadiyo si shalay lagu raadinayo waqti time lagu gelinayay adigoo maanta guriga joogtida xaaska ah in lagu geliyo cunto fiican xaajigaaga si soo dhawee adoo qurux badan istartar dhalada cadarka isku jabi gurigaada qurxiso noloshaada qurxiso waxa soo dhan waa ma sha Allah tabarakallah laakiin waxaan maartay aad lugta jiid kan jiid maartay xaaji nafta aad iska bixinaysaan stop waa waxyaabaha nilagu nacay oo niliga caajisay noloshu waa isfahan mar walba waxa ku dadaashaa qofkan inaad ka dhigatid aad noqotaan dad saaxiib ah dhaqankaas iyada hadda leedahay jooji ninkii inaad isqabo markay saaxiib yihiin wax ka fiican mala number 1 dhaqanka jooji hadda leedahay number 2 hadda tahay gabar mar walba jecel in la raali geliyo maanta dhan meel cid ku xanaaqayso gafuurka taagayso waxay markay joogto masiir maala yacni raadinayso maanta dhan rabto inay qayliso ay buuqdo ay maanta dhan qofkii ka iyada la daba socdo iyada la raali geliyo maanta dhan daraama socoto maanta dhan buuq socdo hadda tahay jooji do you know why qofka bili aadanka ah marka aad noqotid 2 cunug 3 cunug marka dhashid waa laga caajisaya because qofka ku jecel markaad waqti qalbigiisa degi lahayd oo aad jacayl siin lahayd oo aad ma aragtay wanaajin lahayd maxaad ku mashquushay inaad adigu qofka ku jeclaa mar walba aad u muujiso inuu wax liitaya adigana aad tahay qof wanaagsan adi ahaantaada marka isma liidaysid laakiin reality-ga marka laga hadlo waa liidaysaa qofka markuu kugu caajisaya wuxuu helayaa qof qaladkiisa qaadanayo qaylida iyo buuqa iyo drama-da aan jeclayn taas iyadana hadda leedahay iska jooji noloshaada dambe maartay gurigaada ka burburinaysa midda saddexaad adigoona go'aan sax qaadanin ina orodid example qofkii waa isku dhacay ilka way isku dhacaan carab iyo ilka isqaniino carabkaaga hadda muxuu ka sameeyay adoona ogeena qaniine maqaladu kaaga waa maya dadku way isku dhacaan way isqabanayaan laakiin ha degdegin kameraha iska soo shidanin ninkiyaa saaneen ninkiyaa kane ha degdegin baag inta aruusatid reerihiina ha wicin saaxiibadaada warka badneedo 99 war kale ordaysa ha wicin ha degdegin mar alla markaa carootid waxaad qaadataa neef qaado korujid hadana siidaa 7 jeer saligaada qaado 2 rakaco sunno tuko tasbiixso caradaada daji kadib markaas go'aan gaar markaas waxa tahay qof maskaxdiisa ay degan tahay laakiin ha degdega faraha badan ma fiicino qofka noloshii macaankiina dhaxda ka baxaayo arinta qoyska markay banaanka u baxdo macaankii iyo xiriirkii iyo jacaylkii wuu daciifaya meesha wixii baa ka dhamaanayo haysa midda afraad oo muhiimka ah quruxdaada ku dadaal kalsoonidaada ku dadaal inaad naftaada kubciso ku dadaal waxaan aad shalay markii la guursanaa gabar yar oo qurux badan dhaxdeedu taakay ahayd maanta ilmo markaan dhalay no abba ilmaha waa lagu la dhalaa waana la qurux badan yahay dhaxdoodana way ka shaqeeyeen baadigoodana way ka shaqeeyeen gabdhaha ajaanibta waxba ma dhaamin gabdha Soomaaliyeed indhaha runta isku sheegno haddaadan qofkan aad la nooshahay aadan isku qurxinaynin oo dhalo iskaga dhigaynin walaale macaantu waaba la nooshahay why not aadan quruxdaada iyo jirkaaga iyo wanaagaaga aad u muujinaynin haddaadan u baahneen adigoo nooc kale oo maartay laga cabsanayo qofka hala noolaanin duurkaas ka maradiis banaankiis maradiis geed ma qabsato quruxdaada ku dadaal skin care-kaaga cabitaankadaada vitamin jirkaan hadduu shalay cunug dhalay waqti si ilmaha kala fogeyso 2 sano 3 sano jirka soo dhis jimicsi samee exercise samee jeex hadduu ku galo habeen walba taagno muraayada saa iskugu fiiri maartay iska habeen walba maartay waxyaabaha loogu talagalay jeex inay bixiyaan mari subaxda ka dhaq galabti mari isku mashquul waxaas dhan way baxaan waxaan bixeenin male ana ka taa gabdha Soomaaliyeed raaxada lagu hoosteeda ka raadinaa gabdhaha adduunka ugu miseer badanna waa ku jirnaa marka quruxdaada mar walba ku dadaal
intaad nin aad ku mashquulsan tahay una wayga raacay halkaas fadhida dirac 9 mitir ahaad qabtaa ilaahay kuma darnaadee adiga dhan dirac golgolmaha ka dilacsanaad qabtaa adiga dhan nooc kala tahay timihii rainbow ay ka yihiin overweight noqotay garbi halkaas ku joogaan adiga dhan buluqdaas alee halkaas fadhida waxa leedahay waxba la raacay waxba la raadsaday hadii la raadsanayo xitaa anigoo qurux badan oo taagan wixii baxay wixii yaacay ha baxo waxba igama gelin mar walba aad qurux badan tahay oo labis badan tahay oo maartay ma inaad 9ka makeup marsatid mariya qaali soo gadatid maartay bukiyeer amaanta taagnaatid ma aha quruxda lagu sheegayo jimicsi gurigaada ku samee mara yaroo nadiif qabo hadaad laba dirac aad qabtid midna habeenkii markaa sii seexanaysid sii dhaq laabo subaxdina xiro galabtina mid xiro waxa lagu sheegay waxaad haysatid markaa qurxiso waxa markaa aad haysatid wanaajiso habeenkii markaa sii seexanaysid dhaladaada yaro maartay barfuunka soo qaado aayirko dhac lacagta ku goyso maartay ku gado maaha inaa wax qaali raadisid waxay markaa lacagtaada ku goyso ku soo gado ya inda kuushaada yarka ah reesatadaada yarka ah dhac timahaada kor u taago adigu qurux badan 10 ciyaal hadaad dhashay xitaa gabdhaha Soomaaliya guriga ku mashquulaan laakiin baadigoodii jirkooda kuma mashquulaan taas iyadana afarta way igeysina